سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ونكسل داوض الميل ولبا جوجتان qodobada wararkeena ku maqli doontaan waxa kamida dawladda Itoobiya ayaa daabulaysa ciidamadii ugu tirada badnaa ee la geenay jiida hore ee dagaalada ay ka socdaan ee dhaxaya dagaalada u dhaxeeya dalalka Suudaan iyo Itoobiya ayadoo dawladda Itoobiya xirada Huursa ee militariga dalka Itoobiya magaalada Addis Ababa la isku keenay kumanaan kun oo ciidan ah oo loo daabulay jiida hore ee colaadu ay ka taagan tahay dawladda Itoobiya ayaa wacad ku martay gabi ahaanba inay soo afjari doonto ciidamada Suudaan ee ku soo duulay gudaha dalka Itoobiya deegaanada lagu maraysay ama xuduudda iyo gobolkan ay ciidamada Suudaan qabsadeen ayaa hadda loo daabulayaa kumanaan kun oo ciidamada militariga dalka Itoobiya si ay halkaasi uga howlgalaan ciidamada dalka Suudaan gabi ahaanba uga saaraan dhulkaasi jamhadda oola ka dharawa deegaanka Oromiya ayaa guulo waaweyn ka sheegatay dagaalada ay la gashay militariga dalka Itoobiya iyadoo jamhaddu sheegtay inay fariisimo waaweyn ka qabsatay ciidanka militariga dalka Itoobiya ciidamada jamhaddu isku sii balaarinayaan deegaano aad u tiro badan iyadoo dawladda Itoobiya ay sheegtay inay jamhadda dhul aad u tiro badan laga siifeeyay dambiilayaashii dhulkaasi xasuuqa ka geystana sida ugu dhaqsaha badan sharciga la soo horkeeni doono xoogagga Tigray ayaa ciidamada u tiro badan u sii daabulaya magaalada Humayra ee dhufayska ay kaga jiraan ciidanka dalka Itoobiya ciidanka dalka Suudaan ku hortaagan magaalada istiraatiijiga inay gacanta u gasho ayadoo TPLF ay diyaarinayaan baa la yiri dagaal ka dhan ah dawladda Itoobiya mar kale hase yeeshee dawladda Itoobiya ayaa hadda ku mashquulsan baa la yiri dagaalka lagula jiro dalka Suudaan ama abaabulka ciidanka dawladda federaalka ciidamada dawlad deegaanada laga soo daabulayo ee la rabo dalka inay ka difaacaan baa la yiri cadawga shisheeye ku soo duulay xaaladda dalkan heegan la geliyay ciidanka qaranka iyo dhul bayni heegan la geliyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xamza Cabdi Barre ayaa la filayaa saacadaha soo socda inuu ku dhawaaqo golihiisa wasiirada si uu loo shaaciyo kadibna loo horgeeyo golaha baarlamaanka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha ayaa kulamadii ugu dambeeyay la qaadanaya la tashiyada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha jamhuuriyaddu saacadii la soo dhaafay ay kulamo xasaasi ah ku yeelanayeen madaxtooyada dalka Soomaaliya laga xukumo lana filayo saacadaha soo socda golaha wasiirada ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida ugu dhaqsaha badan loo horgeyn doono golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya si ay u ansixiyaan baalina dalkuna uu hor ugu tallaabsado horumarka iyo dawlad dhisidda dalka Soomaaliya si wada jir ah looga shaqeeyo la yiri qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku maqli doontaan taariikhdu waxay ku beegan tahay 3 bisha 6 2022 haddaynu ugu gal wararkeena oo faahfaahsan dawladda Itoobiya ayaa kumanaan kun oo ciidan ah soo daabulaysa ama ka soo daadguranaysa dawlad deegaanada uu ka kooban yahay dalka Itoobiya dawladda Itoobiya ayaa ciidanka aabid ugu tiro badnaa ciidan xirada loo yaqaan Huurso ee ciidamada dalka Itoobiya ee ku taala duleedka magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya isku keentay kumanaan kun oo ciidan ah oo laga soo daabulay xuduudaha dalka uu leeyahay Soomaaliya Djibouti Kenya iyo ciidamada dawlad deegaanada dalka Itoobiya ayaa guud ahaan la soo daabulaya si ay dalka Itoobiya u difaacaan baa la yiri xirada Huurso ayaa la sheegay in ciidamo aad u tiro badan halkaasi la isku keenay ciidamadana loo sii daabulayo jiida hore colaadu ka taagan tahay ama dhulka ay ku marasan yihiin waa dalalka Itoobiya iyo Suudaan ama dhulka ay ciidamada militariga dalka Suudaan ay qaabsadeen ayaa si ay ciidamadaas u difaacaan laga howlgelinayaa wadooyinka waaweyn oo u baxaa dhulkan ay dagaalada qaar ka socdaan ayaa la arkay militariga dalka Itoobiya oo hubka culus xambaarsan oo jidadkaasi si weyn ugu sii qulqulaya ayadoo la sheegay inay dagaalo iska hormaadyo waaweyn ay hadda ka dhacayaan goobaha ay ciidamada Suudaan ku sugan yihiin hase yeeshee dawladda Suudaan ayaa sheegtay inay marnaan dhulkaasi ka baxayn wada hadal la ka galaynin ayadoo Suudaan ciidamadii ugu badanaa abid ay halkaasi mar kale u soo daabulayso Suudaan ayaa sheegtay dhulkaasi inuu yahay dhul Suudaan ka maqnaa ugu yaraan 50 sano ayna ciidamada Suudaan ay awood u leeyihiin bal dhulkaasi inay difaacaan ayadoo dawladda Itoobiya ay Suudaan si qabow ula hadashay inay Itoobiya sheegtay
in ay ogashahay in la wada hadlo xaaladda gobolkaana laga wada hadlo ciidamada iyo colaaduna inay labada dal midna u rooda hase yeeshee Suudaan ayaa tiri baa la yiri hase yeeshee Suudaan ayaa fahansan baa la yiri ciidamada Itoobiya gaadmada ay wadaan iyo dawladda Itoobiya dhigashada ay wado in ay tahay inay dhabar jabin weyn ku sameeyay militariga dalka Suudaan si ay gebi ahaanba halkaasi si fudud gacanta ugu galo ciidamada militariga dalka Itoobiya jabhada aad ka hubaysan ee ka dharada gobolka Oromiya ayaa howlgalo militari aad u balaaran ka sameeyay bartamaha gobolka Oromiya iyadoo jamhadu sheegtay inay guulo waaweyn ka gaadhay dagaalkii ay la gashay saacadihii la soo dhaafay ciidanka militariga dalka Itoobiya jamhada ayaa sheegtay fariisimo waaweyn oo militariga dalka Itoobiya ku lahaa bartamaha gobolka Oromiya in ay dagaal khadarayo halkaasi ay kula gashay ciidanka dawladda inay gabi ahaanba dhulkaasi ka saartay jamhada ciidankeeduna ay dhanka ay u jeedsadeen gobol kale oo ay ku sugneen dhawaana hase yeeshee ciidanka dawladda iyo maamulka Oromiya uu ka shaqeynayay dawladda Itoobiya ayaa sheegtay waxa uu yeedhay ururada argagixisada ee ka dhaqaaqa dalka Itoobiya inay maalmihii la soo dhaafay saacadihii la soo dhaafay ciidanka dalka Itoobiya ay guulo waaweyn ka soo hayeen baa sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Itoobiya u hadlay ayaa sheegay ciidanka dawladdu inay guulo waaweyn ka gaareen dagaal ka dhacay gobolka Oromiya isagoo sheegay dambiilayaashii dhawaan xasuuqa gobolkaasi ka geystay sida ugu dhaqsaha badan inay sharciga la horkeeni doono iyadoo hay'adaha amnigu wali ku howlan yihiin baa la tacaalida argagixisada ku habsatay gobolka Oromiya sida ay afka dawladda ku sheegtay xoogagga Tigreega ayaa ciidamada u tira badan u sii daabulaya xuduudaha gobolkaasi uu leeyahay dalka Suudaan ama deegaanka Humayra ee dhulka lagu murasay magaalada istiraatiijiga ee ciidamada Itoobiya ay ka howlgalaan Humayra ayaa ciidamada Suudaan isku dayayaan bari inay gabi ahaanba gacanta ku dhigaan ayagoo isku dayay inay ka faramurajaan ciidamada dawladda federaalka Itoobiya halkaasi difaac weyn ka xidhay iyo ciidamada gurmadka halkaasi weyn ugu soo qulqulaya hase yeeshee xoogagga Tigreega ayaa isku dayay baa la yiri inay dhabar jabin weyn ku sameeyaan ciidanka dawladda iyadoo ciidamada TPLF si weyn loo soo dhoobay goobaha ay colaadu ka taagan tahay ee Humayra xoogagga Tigreega ayaa diyaarinaya baa la yiri dagaal ka dhan ah dawladda Itoobiya si ay mar kale isku dayaan bal inay dalka Itoobiya ay khalkhal galiyaan qodobadkan ugu dambeeyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Xamse Cabdi Barre ayaa ololihiisa siyaasadda ee dawladda sida jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya si weyn uga wada magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya la filayaa saacadaha soo socda inuu ku dhawaaqo golihiisa wasiirada ee 5 sano ee soo socota dalweynaha Soomaaliya si hogaamin doona ayadoo ra'iisul wasaaruhu la tashadii ugu dambeeyay wado ee ku dhawaaqista golihiisa wasiirada sidoo kale ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa wada hadallo dheeraad ah la qaadanay madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud saacadihii la soo dhaafay wada hadallo xasaasi ah u socdeen sida laga yeelayo dawladda sida Soomaaliya wadada loo marayo qaabka ay dawladdu u talaaba qaadayso iyo golaha wasiirada ra'iisul wasaaruhu soo xulay si uu tashiyo waaweyn ula sameeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo muddo xanuunsana hase yeeshee ilaahay xanuunkaasi ka caafiyay markana xafiiskiisa dib ugu soo laabtay ayaa la tashiyo xasaasi ah la sameynaya baa la yiri wasiirka koobaad ee dalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya taniyo kulanti dambe waxaan salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.